cabdullaahi ibnu cabbaas allah ka raali noqdee waxa uu yidhi in nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisii ha ahaatee markii uu dhammaystay xajkiisii ugu dambeeyey oo ku beegnayd sannadkii tobnaad ee hijriyadda uu hor istaagay iridda laga galo kacbada barakaysan ayaa asxaabta wuxuu ku yidhi ma idiin sheegaa astaamaha maalinta qiyaamaha lagu garto salmaan alfarisi oo ka mid ahaa asxaabta islamarkaana taagnaa meel u dhow nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa yidhi haa yaa rasuulallah inoo sheeg rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi xaqiiqo ahaan astaamaha lagu garto inay soo dhowaatay saacadda waxaa ka mid ah in dadku ay salaadda dhayrsadaan oo ay fududaystaan dadku waxay u hoggaansami doonaan hawadooda ama shahwaadkooda waxay ku dadaali doonaan inay naftooda uun u roonaadaan waxayna aad u xishmayn doonaan dadka maalqabeenka ah waxay iibsan doonaan diintooda iyagoo ku beddelanaya adduunyo wakhtigaasii la joogo ruuxa iyo qalbiga mu'minka ah waxay noqon doonaan kuwo murugo darteed u milma sida milixda ama cusbada ay ugu milanto biyaha waayo mu'minku waxa uu arki doonaa waxyaabo la xaarantimeeyey oo lagu dhaqmayo mana awoodo inuu wax ka beddelo salmaan ayaa markaa yidhi waxaasi ma dhici doonaan yaa rasuulallah rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa yidhi haa waxaan ku dhaaranayaa rabbiga naftayda ay gacantiisa ku jirto isagoo raaciyey wakhtigaasi kuwa xukunka haya waa kuwo daalimiin ah wasiiraduna waxay noqon doonaan kuwo caasiyaal ah kuwa xilalka loo dhiibana ee ammaanada lagu ammaanaystay waxay noqon doonaan kuwo wax khiyaameeya xaqiiqadii wakhtigaasi xumaanta waxaa loo arki doonaa wanaaggana waxaa loo arki doonaa xumaan kuwa wax khiyaana waxaa loo arki doonaa kuwo aamina kuwa aaminka ahna waxaa loo arki doonaa inay yihiin kuwa wax khiyaameeya kan beenta sheegana waa la aamini doonaa halka kan runta sheegayana loo arki doono inuu beenaale yahay wakhtigaasi waxaa kale oo jiri doona maamulo ay haween ka taliyaan khiyaanadana ama in wax la isdabamariyo waxaa loo arki doonaa ilbaxnimo sakada bixinteeda waxaa loo arki doonaa sida iyadoo qofka lagu soo rogay inuu bixiyo ganaax hantida ummadduna waxay noqon doontaa sida hanti uu ruux si gaara u leeyahay ruuxa waxa uu kibir kula dhaqmayaa waalidkiisa waxaana uu si wanaagsan ula dhaqmayaa saaxiibadiisa xilligaasi waxaa la arki doonaa xidigo gadaal ka jiidan salmaan ayaa markaa yidhi waxaasi ma dhici doonaan yaa rasuulallah rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa yidhi haa waxaan ku dhaaranayaa rabbiga naftayda ay gacantiisa ku jirto isagoo raaciyey salmaanow wakhtigaasi haweenka waxay ganacsiga kula shirkoobi doonaan raggooda roobka di'i doona waxa uu noqon doonaa mid kulayl wata dadka wanaagsani waxay noqon doonaan kuwo murugaysan masaakiintuna waxay noqon kuwo aan la xishmayn waxaa jiri doonaa oo kale suuqyo isku dhow waxaana ganacsatada sidaa aadka iskugu dhow uu mid kasta odhan doonaa anigu waxba maan iibin kan kalena wuxuu odhan anigu wax faa'iido ah maan helin sidaa darteed ma weyn doontid qof ilaah u cabanaya subxaanahu wa tacaala salmaanow waxaa dhici doonta in dadku haddii ay ka hadlaan arrimaha dadka talada haya waxay la kulmi doonaan dil haddii ay aamusaanna waxaa khasab lagaga qaadi doonaa hantidooda wax xishmad ah lama siin doono dhiiggooda ayaa la daadin dadkana quluubtooda waxaa ka buuxsami cabsi mana arki doontid ruux ilaa ruuxaasi uu noqdaa mooye mid aad u baqaya shakila'aan salmaanow waxaa jiri doona waxyaabo laga keeni doono beriga iyo kuwo laga keeni doono galbeedka waxaana halkaa ku ba'aya kuwa iimaankooda uu daciifka yahay ee ummaddayda ka tirsan dadku waxay noqon doonaan kuwo aan isku naxariisan oo aan iscafin jirkooda waa jir bani aadam laakiin quluubtooda waxay noqon quluub shayddaan salmaanow wakhtigaasi ragga waxay habaysan doonaan rag kale haweenkuna waxay sidoo kale habaysan doonaan haween kale wiilasha yaryarka ahna waxaa loo isticmaali doonaa sida haweenka oo kale raggu waxay isku ekaysiin doonaan haweenkuna waxay isku ekaysiin doonaan rag waxayna taasi horseedi doontaa inuu ilaah naclado haweenka ummaddayda ka tirsan masaajidada waxaa lagu xarri doonaa dahab iyo wixii la mid ah si la mid ah sida loo xarro kiniisadaha iyo goobaha ay ku cibaadaystaan yuhuudda qur'aanka waxaa lagu xarri doonaa naqshado iyo midabo ku soo jiidanaya iyo wixii la mid ah minaaradaha masaajidada waxay noqon kuwo aad u dhaadheer safafka dadka salaadda ku jira waxay noqon kuwo badan laakiin dadkaasi quluubtooda iskuma fiicna hadalladooduna waa kuwo iskhilaafsan wakhtigaasi raggu waxay isticmaali doonaan dahabka oo ay xarago ahaan u xidhan doonaan waxay kaloo xidhan doonaan xariirta wakhtigaasi waxaa jiri doono ribo
dadkuna waxay samayn doonaan ganacsi iyagoo isku eedaynaya laaluush dadku diinta ayay dhulka dhigi doonaan dunidana kor baa loo qaadi doonaa wakhtigaasi waxaa badan doona furiinka ragga iyo haweenka xuduudaha rabbina waxay noqon doonaan kuwo aan la dhowrin laakiin taasi mid Allah subxaanahu wa ta'aala wax u dhimaysan ma ahan waxaa soo bixi doona haween heesa iyo aalado muusig ah kuwa ugu xunna waxay u talin doonaan ummadayda wakhtigaasi dadka maalqabeenka ah ee ka tirsan ummadayda waxay xajka u tagi doonaan sida iyagoo booqasho ama socdaal caadi ah ku jira iyagoo ay weheliyaan ganacsato meel dhexaad ah masaakiintuna waxay u tagi doonaan istutus waxaa soo bixi doona dad baran doona qur'aanka kariimka balse ujeedkooda ma ahan alle dartii waxayna qur'aanka ka dhigan doonaan sida aalad muusig ah waxaa kale oo jiri doona dad diinta baran doona oo iyaguna aan alle dartii sidaa u samaynayn waxaa badan doona tirada carruurta aan sida sharciga ah ku dhalan dadkuna waxay isku qaadi doonaan weeraro adduunyo ceyrsasho awgeed salmaanow waxaani oo idin waxay dhici doonaan mar xishmaddii ay suushay dunuub badana la geli doono dadka xunxun ay u talinayaan amaba ay korka ka haystaan kuwa wanaagsan beenta ayaa faafi doonta waxaana dhici doona cay iyo doodo hadallo la isku dhaafsado miskiinnimada ayaa iyana baahi doonta dadku waxay isugu faani doonaan labiskooda waxaa di'i doona roobab aan wakhtigooda la gaarin dadku waxay wakhtigaasi cayaari doonaan khamaar iyo muusig ma jeclaysan doonaan dadku inay wanaagga isfaraan xumaantana iska reebaan allahu akbar dadow ilaahay laga cabsado qofka mu'minka ah xishmaddiisa waxay noqon mid aad u hoosaysa marka la barbardhigo xitaa dadka ka shaqeeya guryaha waxaa la arki doonaa kuwa kabahala oo qaaban oo sabool ah oo ari raac ah oo ku tartamaya dheeraynta dhismaha allah tawfiiqda hana waafajiyo aamiin